aad iyo aad yaan idinkaga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo quruxda badan aad noo soo dhowayseen aan aaminsanahay ilaa saakay aroortii inaad noo taagnaydeen cadceed aad noo taagnaydeen waxaan iloobi karna ma aha waa maalin taariikhi ah oo aan nimid halkan sida wanaagsan aad noo soo dhowayseen runtii waxaa la siiyey cashar aanan hore u ogeyn inay ahayd magaaladan magaaladii shabaabka ugu horraysoo la dagaashay oo ka bixisay oo ah meeshii xuduudka ahayd xuduudka ay ka bilaabatay derbigii laga dhisay ay u gudbi waayeen qolooyinkan khawaariijta ay u gudbi waayeen gobollada intiisa kale ilaa puntland ilaa waqooyi u gudbi waayeen taasna runtii waxay ka turjumaysaa geesinimadiinna soomaalinimadiinna iyo diin jeceelkiinay ka turjumaysaa welina ilaa hadda ay ku soo noqon waayeen ilaa hadda oo aad u tihiin aasaaska nabadda galmudug aa u tihiin aad iyo aad yaan idinkugu mahad celinaynaa meelahan soo marnay kullina waxaan kala kulannay soo dhowayntan iyo mid la mida laakiin meeshaan sidaan arko waxaa ii muuqda energy xamaasad badan baa ii muuqata oo aad iyo aad u badan walaalayaal hawl adag baa noo taalla hawl adag ayaa noo taalla oo igu horrayso inaan ka shaqeyno midnimada galmudug iyo inay noqoto meeshaan midnimada iyo isu keenista iyo dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed oo idil madaxweyne ilaahay qowrka ku siiyo xilkaadayda ilaahay kurma ceebeeyo ummadaada ilaahay ku ogolaysiiyo muslim iyo gaalo allah ku ogolaysiiyo sidii laguu doortay oo aan la soconno oo soomaaliya intay joogto lagaaga wada hambalyeeyey oo lagaaga jeclaay kii ku soo baxa allah kaa dhigo meel kastoo soomaaliya joogto inta madaxweynaha soomaaliya tahay aad u dhaxayso meel walbaba waxaan aan rajaynaynaa inaad ku tegi doonto inaad baahidooda buuxin doonto intaasaan rajaynaynaa madaxweyne soo dhowaaw ilaahay khayr ha ku siiyo cadowgaagana allah qabto wax khayr qaba allah ku siiyo ilaahay ku kalmay madaxweyne waxaan kaa rabaa madaxweyne qur-aanka kariimka iyo calankii soomaaliyana waa kaas